هذا أنت أبد الشيء وننجور ستي وبرنامج نولات سمايسي هذا أبد كي أي كده يعنتي تي حس لي أنا متعدى كل حاجة كسب شو أنا سكوا حرنين ومركز تعديل البين مركز شو أنا سكوا حرنتين markay gabadhii maxkamadda qabato in ka shaqeynaysay suuqa haddaynan diinta taqaano diintii garanayso way nabadgelay diintana qabanaysa ugu horeyn magacaygu waa Faadimo Xaaji Xasan isduwaa wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ugu horeyntii halkan waxaan uga mahadcelinahay hay'adda Care iyo Nagaad oo partner la ah oo inoo fududeysay madashan aqoon isweydaarsiga ee lagaga hadlayo xuquuqaha haweenka iyo gabdhaha iyo tacadiyada ku dhaca haweenka iyo gabdhaha kaasoo ka mid ah barnaamijyada ay ka fuliso Nagaad gobolka oo ah la dagaalanka dhaqamada xunxun ee ka hormaraya xuquuqda aadanaha iyo xuquuqda islaamka kobcinta iyo xoojinta haweenka ee dhinaca dhaqaalaha aqoonta iyo dhinaca ganacsiga iyo dhinaca siyaasadda ujeedada markaa madashan haddaan ku soo dhawaado loo fadhiyo waxa weeye haddaan yar idinka taataabto dhowr ujeedo bay leedahay in la abuuro jawi ay ku wada shaqeeyaan gabdhaha haweenka iyo bahda warbaahinta si loo helo madal ay gabdhaha iyo haweenku kaga hadli karaan xuquuqahooda isla markaana ay kaga hortagi karaan tacadiyada ay la kulmaan ujeedada labaad waxa weeye in la dhiirigeliyo warbaahintu ka qayb qaadato ka helitaanka arrimaha ka hadlidda arrimaha haweenka iyo sinaanta xuquuqaha bini'aadamka ee ragga iyo haweenka ujeedada kale waxa weeye in la suurto geliyo in gabdhaha iyo haweenku helaan goob ammaan ah oo codkooda ku soo bandhigi karaan iyagoo ka hadlaya xuquuqahooda isla markaana ka hortagaya tacadiyada loo geysto bulshadana u gudbinaya dhibaatada jirta si wax looga qabto sidaynu ogsoonahay ama aynu halka isugu nimin kulay waxa weeyaan ujeedadu waxay u tahay in laga hadlo magaraysa tacadiyada ku dhaca haweenka caruurta iyo nugulka تعدق واحد اللي سوى كوب كرماء سيدي سوى واحد بلارن مركو ردين تنا الإسلام كي حرك دستور كا مركو ردين تنا الإسلام كأي سوى كوب تحب بكنسا وقفل با يعني إلى هاي تعدق مركو هرب وموقلا دول مجيلا وحرنتني بيسيدي سنة كنا نفتح ومسك حرب بدك بنادك كنا ومسك كان أنا دول ميدان ما أما أنا دول ميدان ما إن سيدا إن مشروعا وتلماميو waxa weeye inaan challenge kareyno ama in ka hortagno tacadiyada ka dhanka haweenka iyo dadka nugul mashruucan muddadii uu socday wuxuu awood siinayay kor u qaadida dhaqaalaha haweenka ka qaybgalka siyaasadda iyo la dagaalanka tacadiyada maanta waxayna la joogaa khibrada wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo women rights organizations iyo ardaydii aynu markaa barinay isbedel uu gacanta ku hayay ahaa Galshayn iyo change plus labadaas wayna la joogaan ardaydii wax ka baratay waxayna falanqeyn doonaan oo daadihin doonaan isla jarjari doonaan tacadiyada waxa keena root causeska sida looga hortagi karo taasoo ah wacyigelin halkanna ay noo noqon doonto gole ama degel aynu ka wacyigelinno bulshada oo ayna la socdaan xuquuqdooda aasaasiga ah ee aan lagu xadgudbi karin waxa la dhici karta marmarka qaar marka aynu sameeyno assessment ama research aynu sameeyno waxyaalo fara badan oo qofku aanu tacaddi u aqoono bulshada dhexdooda ku jira inay yihiin tacaddi balse aanu qofkii ogeyn taaynaga ka duulayna waxaan doonaynaa bal hadda dadka inaan fariin gaarsiino fariintaas oo ah bal sida looga hortagi karo waxa uu tacaddigu yahay iyo sida la isaga kaashan karo bulshada waa tahay kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada dood wadaag ku saabsan tacaddiga ka dhanka jinsiga oo hay'adda Nagaad ay ku qabanayso magaalada Ceerigaabo taasoo ay ka qayb gali doonaan isla markaana isla falanqeyn doonaan qaybo kala duwan oo kamida bulshada ama metelaya wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska iyo waliba wasaaradda cadaaladda iyo sidoo kale qaybo kamida NGO-yada ka hawlgala magaalada Ceerigaabo ugu horeyn barnaamijkan oo Nagaad ay magaalada Ceerigaabo ay ugu qabanayso tacadiyada ka dhanka ah haweenka
waxay ila daadihin doontaa Igraan Gamuute oo dooda iyana qayb ka qaadan doonta. Igraan horta ku soo dhaweynaya marka hore. waad mahadsantahay Cabdirasaaq oo walaal ka soo qaybgalayaasha dooda ee dhanka dumarka waxa ugu horeysa hooyo Zainab Jaamac oo ka socota ama ka doodaysa afka ururka haweenka waxa kamid ah ayaan Maxamed Cilmi oo ka socota wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska waxa kale oo ka socota Shukri Maxamuud Xasan oo ah social worker waxa kale oo socota Nasra Ciise Xasan oo ah NGO sidoo kale waxa ayna barnaamijka qayb in kala qaadanaysa Sawda Cumar Xuseen su'aasha koobaad aynu ku furanayno barnaamijka waxa weeye markaynu ka hadlayno تعدي محل ولا شيء كلمة تعدي أما إرجع تعدي هذا كهذا ومحي تعدي وحويا وحقصة وقفك حق لي هي ووايو مركا يضو مركا لوجو جيسنا يديب هدولها لو جيسنا يشرفتيسة مالكيسة مجعيسة أولاديسة ehelkiisa sharaftiisa wax kasta oo lagu xadgudbo oo xaq u leeyahay weeyaan taadi qofka bilaadanka taadiga ayaa u nugul haweenka iyo caruurta iyo cid kasta oo naafada dadka laga tirada badan yahay cid kasta oo taadi ku dhaco waa haweenka oo ay u tahay number 1 waayo waxay keenaysaa sababo badan waayo wadad aan gaarsiin karin fariimahoodii oo aan dhibaatadooda gudbisan karinin su'aasha waxaan siinayaa حسين صالح بنسينيا حسين محاسبة تعديات كندنكا هوينك سيقول تعديات أردنا وحياة سوي كروحة كمية إن شروع ذا إيو مارتي ليلالين وايو محوها هاي سياسة ده إيو مارتي أرت أما محوها هاي دستور كأما دين الإسلام كالاحترام وايو وحا سببه أو كلا إن باور أوف أبيوس أود السخط الله استعماله أما مارتي قفك أودي ولها هذين نقطة مد إلهي سي هذا أما أدون كيسو أو كنت تكرفله أود وليه وقفك سحن أو أبي يسكريه أو سخدان استعماله وحيابا كله تعدي كسبب كرو حكم ذا أما سي بدين كرا إن شروع ذا ماركتي أما ماركت قبنا يسمى إلى علنيس أو أن ودن كين عاد وقت كين هدير أما عندك احترامين. وما حصلت هاي ياسين أحمد محمد محمود أحمد سيدا أيو أسامي يا تعدي هوينك. ده سؤال شكل جوابه. تعدي كله وحوس سامية سيقول دتك نقول أردن سيابا بدن بو سامية مركوات وحي وايان حقوق دي أساسي جها هذي تي شرفت ولا تي محيري النولد وحصلنا يوايان تكو جوسين نقول له حكسي مذا تمر كيا جوسين نقول مرشان وحكينا يا مدام السوماليين أي تايد قناهان دد محيري حق الرجال ما ذو حقوق السارة إن دمركو أنا مرة والبا محيدي فرشده هذي تاي دقالها هذي تاي جناسية هذي تاي شقوينك هذي تاي حلالك إيه تقول يريهن سدوك راح يابها دمركو سينقلين يا حكم ذا مسؤولية دين تبغى دين تينو صار ترجع وقت يدن دم محيدي أنا مش كبحي يا صاوي يعني دمركو سينقول هذا يدرك كذا سنبا وسيدا يسيشجع حياة كلا ينقولون لي وحاكم إذا محيدا يعني شروعي يو دينتي إنه إنه كل رقمين وشروعي إنه يالي أيان سيدو يلو فلين وذلك أنت بدأ تعديل كي سنة ودلي أما بوزيشن كوجيستو أما حوج سبب كوجيستو أما مسؤولية سبب هذا وحنشرين حير يو شرعي ويا قبني أيان شرين وفرنت الشرع يحوجنا يا يجنا ayaa meesha inta badan ka baxa taasina ay sababtaa in dumarku iyo caruurta iyo dadka waayeelka ay inta badan nugul iyo taadiyadu nugul ay u sii nuglaadaan taadiyada ay ku dhaca wanaasubanku Zainab Jaamac sidee looga hortagi karaa taadiyada ku dhacaya haweenka iyadoo bulshada la isu keeno waayo yaraanaya markay bulshadu fahanto taadigu wuxuu yahay imaantiga ay isu imaanayaan wax badan ayaa fariimo message la dirayaa markaas waxa gudbaya xaafadaha oo dhan waxa uu gudbaya tacadiga in laga hortago dhibaatada ayaa yaraanaysa laakiin koow in laga bixiyo wacyigelin ballaaran oo ilaa gobolada degmo si bulshada ay uga yaraato tacadiga door intel eeg ayay ka qayb qaadan kartaa isku xidhnaanta bulshada si loo yareeyo tacadiyada loo geysto haweenka isku xidhnaanta bulshadu waxay ka qaadan kartaa door weyn ayay ka qaadataa runtii bulshadu markay isku xidhan tahay isku duuban tahay maxay ahaday aqoonyahankeeda iyo culimadeeda iyo maxay haweenkeeda ururadeeda
waxaasoo dhan markay isku duban yihiin inta badan waxay keentaa in dadka dembiyada geysta ama maxay dadka tacadiyada geysta ama dadka jilicsan maxay aan dib loo geysan hadana tacadiyadu sida indha aragtay ku socdaan in maxay ay wax la qabtaan oo codkoodu koro marka dadka isku xiran oo isku duuban oo cod mid leh inta badan waxay keentaa inay yaraato tacadigu yaraanaya oo ay wax dhacaya dadkii way isku doodayaan way isku qareemayaan social workers been imika leenahay culimadu leenahay ururo haween beenu leenahay aqoonyahan bay leenahay marka dadkaas markay mar walba arrimahan ay dood ka yeeshaan iska yimaadaan codkooda kor u qaadaan oo maxay leeyihiin waxay sameynaysaa inay inta badan tacadigu yaraado ay sameeyaan marka suxnaanta bulshadu waxyaabaha ugu muhiimsan maxay leeyihiin lagu yareyn karo tacadiyada haddii qaar dambiyo geystaana dadku isku dhinacayay uga soo wada jeesanayaan oo way waxay sameynayaan dadkii tacdiyada geystay dhinac bay uga soo jeesanayaan oo dadkii isku xirnaantii baa keenaysa marka tacdigii waxa sababaya waxa weeye markastoo bulshada aan isku xirnayn oo markastoo tacdiyadu badan yihiin markastoo bulshada aan isku xiran tahayna oo markastoo tacdigu ويرانيا su-aashan waxaan weydiin doonaa Nasra Ciise sidee ayuu saameyn ugu yeelan karaa tacadiga dhaqaalaha qoyska iyo bulshada بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Nasra Ciise Xasan waxaan ka socdaa ururada haweenka ee gobolka Sanaag ama degmada Ceergaabo run ahaantii haddaan ka jawaabo su-aasha ee weydiisay sidee buu tacadigu saameyn ugu yeelanayaa arrimaha qoyska runtii wuxuu ku yeelanayaa maxay tahay saameyn ballaaran haday tahay caruurta haday tahay waalidka marka tacadi ku dhaco ilmaha ama gabadh kamid ah qoyskuna uu yahay qoys la soo baxa qutal daruurigooda oo ka shaqeysta suuqa markay gabadhii maxkamadda qabato ka shaqeynaysay suuqa saribada Ceergaabo oo ay maxkamadda kiiskii u raacdo oo ay bil ku qaadato waxa hoos u dhacay dhaqaalahoodii gabadhii way deemoobeysaa waxa weeyaan hadii jiro dhaqaalaha qoysasku waxay ku tirsan yihiin haweenka oo dumar ganacsato yar yar ayaa biilinaya xaafadaha iyo qoysaska runtii tacadiyada soo gaaraya bulshada ama qoysaska waxay ku leeyihiin saameyn aad u ballaaran oo aanu qofkaas dib uga soo kaban karayn gabadhaasi marka ganacsigeedii burburo ee deyn lagu yeesho ee ay shaqadii ay haysay ee isku celcelinaysay nolol maalmeedka ka soo baaraysay ay ka baxdo saameyn aad u ballaaran bay ku leedahay yaasiin maxaa keena in dumarka raggu ay kaga horeeyaan dhaqaalaha waxbarashada iyo waliba arrimaha siyaasadda oo inta badan Soomaalida ku badan aad iyo aad baad mahadsan tahay wariye su-aasha aad weydiisay hadaan ka jawaabo maxaa keena in mar walba xaq ay kaga horeeyaan raggu kaga horeeyaan dumarka bulshadeena waxay tahay bulsho dhaqanka ku xoogan dhaqankeena markaa wuxuu xooga saarayaa ama maaragtay baaweynaya quweynaya awood siinaya ragga deetana haday noqoto shaqooyinkii waxa ka horeeya ragga haday noqoto siyaasadii gabadhu waxa loo waa dhaxdin oo hadii reer kala qabal reerkii ay ka dhalatay maba doortaan reerka qabaana ma doortaan waxay yiraahdeen gabadhan cid kale u dhalay hadiiba labadii qof xitaa ay isku qoys ka qabaan waxa suuragal ah in la yiraahdo hadana ninka war waa isku yarkacsan inuu doono furaya mid kale guursanay marka xildhibaan ka dhigno taasa keenta marka inay siyaasadiina soo gelin aan la dooran kooto u xidhanina ma jirto oo ay boos ay ku soo baxayaan oo aad wati loogu oolonayay 30% in golayaasha maaragtay boqolkiiba 30 loo xidho haweenka taasina may dhicin marka xagga siyaasadda sababtaas ka riibaysa dhaqanka in dumarkii soo timaadaan xagga waxbarashada waxa ka riibaysa in inamadii la awood siiyo mar walba inamadii iskuuladii loo diro iyagii muxuu ahaayay halkii ay de maaragtay iskuulkii shaqadii hadii la beedankeeda leeyahay si walba inankii marka in waa la diskooray maaragtay kaliyo niyad jabin badan baa ku dhacday taasa keentay in maaragtay haweenku marka aanay walow hadda intan dambe statistics ka tirkoobka inta lagu hayo 3-4 sano u dambeeyay habluhuba kaga badan yihiin iskuulada xagga rag oo de taasna ay ku timi ololo badan oo la sameeyay oo mashruucan changes oo qayb ka yahay guryaha lagu soo tababaro iskuulada carruurta iyagoo yar yar in maaragtay ay labadii qof ee walaalaha ahaa ilaahay agtiisana u sameeyay wiilkii iyo gabadhii ifkana qof waliba wixii uu la soo baxay u sameeyay yaani sabiyo isgareyn kana isdhibaateyn karaan ay tacadiga loo geystana dhibaatada marka inta badan dhaqankeena oo qaybaha xooga saaraya ragga ama maaragtay ninimada ayaa xoog ayaa waxyaabaha lagaga bixi karo in arrimaha waxa kamid ah in wacyigelin badan la sameeyo in dadka awoodsiin capacity building la sameeyo in dumarka income generation loo sameeyo oo dhaqaale ahaan hadii la beedankeeda leeyahay la siiyo fursado ay ku shaqeysan ay ganacsi ku abuuran karaan in vocational training la siiyo oo dumarka hadii la beedankeeda leeyahay xirfada la baro
ay iyaguna dee iskood ugu shaqaysan karaan hadday noqoto qurxinta hadday noqoto cunto karinta hadday noqoto dawaarka hadday noqoto any kind of maaragtay market value ama maaragtay suuq markaa leh la baro si maaragtay iyaguna ay raggii usoo gaari karayaan marka equity la sameeyo oo dumarka baritaar fara badan loo sameeyo hadday noqoto goobaha waxbarashada in scholar 3-4 hablood iskuulka keensada in la yiraahdo scholarship baa loo siinaya laba ama maaragtay si haddii aanay dhaqaale ahaan iska bixin karayn marka waxyaabahaas laga bixi karaa in bulshada la tababaro oo wax la baro in rightskii in maaragtay dadkii u sameeyeen xuquuqda ee muxuu ahaayay justice maaragtay ay jirto cadaalad jirto su'aashan waxaan weydiin doonaa Nasra ayaan baan weydiin doonaa door intee lag ayay ka qaadan kartaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo cadaaladda si loo yareeyo tacadiga dhanka haweenka bismillaah wasaaraddu door muhiim ah ayay ka leedahay sida tacadiga u yareynayso waxyaabaha ay wasaaraddu ka qabato haddii tacadi yimaado waxaa ka mid ah inay marka hore tacadiga hadduu yimaado waxaa noo soo gudbiysaa qolyaha guddidana waxaa social work u soo gudbiyaan social workuna wasaaradda ay soo gudbiyaan process dheer bay raacaan wasaaraduna CID dhakhtarkii u gudbisaa xeer ilaalinta maxkamadda intaa marka laga yimaado oo kiiskiisa loo manage gareeyo wasaaraddu waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah inay kiiskii follow up ku sameyso oo ay daba gasho halku ku dhamaaday in la xukumay in kale kiiskaas markuu dhamaadona in response laga sameeyo oo la ogaado natiijada uu ku dhamaaday referralna waa loo sameeyaa wixii aan anagu u hayno marka ka wasaaradahaana waan u qabanaa wixii kalena stakeholderada nala shaqeeya ayaan u gudbinaa haddii wasaaradda cadaaladda aanu imaado wasaaradda cadaaladda waxyaabaha ay ka qabato kiisaska tacadiga waxaa ka mid ah inay siiso qaybta sharciga oo legal service siiso bilaasha inay advocacy sameyso wasaaraddeeduna way sameysaa advocacy in qofkii dhibanaha loo qareemo in maxay tahay kiiskii ay dabagal ku sameyso in maxay tahay qofkii isagana dhibta geystay in isagana sharciga la mariyo shukri maxamuud xasan kaalinta bulsho ee wacyigelinta bulshada dhexdeeda ah تعديga ka dhanka haweenka door intee leeg ayay u leedahay haweenka alxamdulillah bismillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuul haweenka waxay door intee leeg bay u leedahay waxaa isbedelaya dhammaan wixii dhibaato soo gaadhaysay haweenka ayaa yaraanaya waxaa yaraanaya dhibaatadii soo gaadhaysay hablaha hadday tahay xag maskaxiyeed iyo xag jiraahaneed iyo xag dhaqaale waxaa yaraanaya oo kale muxuu ahaayey bulshadii ayaa u naxariisanaysa dhammaan guri kasta wuxuu ogaanayaa haddii wacyigelinta xoog loo badiyo dhibaatada haysata haweenka haddii guriga ku nool yihiin iyo haddii xagga waxbarashada tahay iyo haddii xagga bulshada dhexdeeda tahayba marka faa'iido weyn aad u weyn talaada saddex gal baa imanaya bulsho oo waxay sameysanayaan waxa la yiraahdo hagbadaha oo isku kaalmaysanaya marba tiita mar yar ayaa inta lacag la ururiyo baa kor loo soo qaadiyaa sida iminka ka jirta xaafadaha Ceergaabo oo kale dan wadaag yar bay leeyihiin oo ururo yaroo badan oo isu tagay marba reerka dhaqaalihiisu hooseeyo ama dabka waxay ku shubtaan aan haysan hooyadaas hadii la doonay furiinku ku badan yahay gobolka Sanaag waxaana inta badan keenay dahab ayaa waxa laga helay buuraha Ceergaabo dahabkaas ragga intii badnayd qabteen dan marka dib uma soo hadlayaan oo qoysaska xukumay soo celin hooyadii caruurtii oo ilaahay xaaladooda og yahay ayaa dan wadaag ururo la yiraahdo laga sameeyay gobolka Sanaag xaafadihiisa waliba dan yarta degan tahay dan marka waxay ururiyeen dhaqaale yar dhaqaalahaas oo marka marba hooyadii aan waxba haysan iyo awlaad waxba haysan kor loogu soo kicinayo marka taas oo kale faa'iido aad u weyn baan u aragnaa muxuu ahaayay habliyo tacliintii lagu u fara badan iminka oo kor loo qaaday tacliintoodii xagga jaamacadii ha u bateen xagga secondary-ga hadeer ha u bateen ma sha Allah tabarakallah yaasiin sidee ayaa looga hortagi karaa in madaxda dhaqan ay garab siiyaan
inta badan ragga dhibka geysta iyagoo aan sharciga kala siisan madaxda dhaqanka waxyaabaha maaragtay lagu hortegi karo waxaa ka mid ah in dee laga saxeexo dhammaan waayo wasaaradda arrimaha gudaha hoos yimaadaan iyadoo ku mushaar qaataan in laga saxeexo kiis tacaddi inay dabada ka kaxay geed hoostiina inaan ku dhammayn sidii dhacday 2006 hargeysa madaxdeeda dhow laga hooseeyay uqaasho dhan laakiin haddana weli effective dee wixii muu sidii la rabay uma shaqeeyo marka waa qodobka in iyaga capacity building loo sameeyo aqoon dhis loo sameeyo muxuu ahaay si loo siiyo dee la baro horta waxaan ka shaqeynayna inay tahay hadimo iyo dhibaato iyo gabdhood fal iyo tacaddi iyagu ay geysanayaan oo qofkii loo geystay isagana mar labaad ay tacaddi kale u sii geysanayaan marka xaqiisa dibadda ku awdaan xuquuqdii qofku lahaa weliba gabadhii oo dib loo geystay kii u geystay loo guuriyay taas waa dhibaatooyin ku go'an marka in laga saxeexo kiis tacaddi any kind of abuse inuu dabada ka tahay haddii lagu ogaadana isaga waajibkiisa laga qaado waa suuragal u yahay su-aashan waxaa weydiin doonaa axmed maxamed xeerarka sharci ee jira oo kuwaasoo ka hortegaya tacaddiga haweenka maxaa waxaa jira xeerka ciqaabta guud uu jira oo tacdiida sida bulshada iyo waxaasoo dhan dembiyada waaweyn dee xukumaya oo xeerarkii islaamiga ahaabaa jira xeer dhaqameed baa ila jira oo dee maxeeday lagu xukuma marka way jira xeero maxeeday tacdiida inta badan ka dhanka ah gaar ahaan sida gaarka ugu dhaca loo xukumo sidoo kale waxaa jira xeerarka kale maxay ahaydey xeerka carruurta xeerkii haweenka xeerkii kursiga xeerarkaas oo dhan oo maxeeday iyana sheegaya dembiilayaasha iyo xuquuqda iyo tacdiyada iyo waxaas oo dhan waxaa lagu dhaqmaya marka xeerarkaas oo dhan ma jiraan fulitoodana ayay u baahan yihiin arrintaas xeer ayaa inoo jira waa mahadsan tahay ayaa baan weydiinaya su-aashan ma jiraan maalmo loo qoondeeyey in lagaga hortago tacadiyada ka dhanka haweenka maalmaha loo qoondeeyey laga hortago tacaddiga ka dhanka haweenka waa maalmo gaar ah maalmahaas waxay ku sugtan yihiin sanadkii dhowrka bilood ayaa la xusaa waa maalmo maaraj oo kale maanta haweenka waa laga hortaga tacdiyada wax la ogaanayo tacdiya jira ayaa la isku xusuureystaa maalinta FGM oo kale oo 6 February waxay jirta maalintii caruurtaas maamo badan ayay leedahay maamaha laga hortago tacdiyada leegna ama bilowdana shaqada wasaaradda ay iyo 16 day activist bay jira lixdan cisho oo ku xusan in tacdiyada laga hortago la ogaado intay jiraan halkay marayaan inahaas way waxaynu ku sisaqaynaa barnaamijkii dooda su-aashan si guud waxaan u weydiin doonaa dhammaan marka soo qabalayaasha waxaan ugu horeysiinayaa axmed maxamed maxamuud si guud tacadiyadu maxay ku keeni karaan dhanka xasiloonida xiriirka bulshada iyo ubadka soo koraya iyo waa in maxay shuruucdii noo yaalay maxay qofka dembiilayaasha ah waa in lala xisaabtamo oo sharcigii la horgeeyo bulshaduna waa inay mar walba abaabul ka yeelato in tacdiyadu aanay maxay aanay dhicin sidoo wax loo hortegi karaa in shanada noocan inta la qabto wacyigelin fara badan la qabto dadka in la abaabulo oo maxay mar walba dadka lagu wacyigeliyo tacdiyada dumarka dhibta ka imanaysa dhibtay qoyskeena ku yeelanayaan dhibta ay haweenka xilay ubadkeena ku yeelanayaan noloshiina si u saameynayaan marka wacyigelin sharciga la fuliyo dadka maxay inta badan wada dhaqameedka iyo ugu badan yihiin in iyaga laftigooda loo qabto tababaro iyo waxyaabo noocaas ah oo lagu wacyigeliyo dadka tacdiga geysanaya in la xisaabtamo waxyaabaha lagu yareyn karo kamid meel wanaagsan bay dhigtay sida ay sheegtay dumarka maxay haytay in lala dagaalamo tacadigu door muhiim ah ayuu yahay hadduu yahay maxay tahay mid nafsiya iyo mid maskaxiyana iyo mid xagga maaragtay horumarka ah nooc kastaba ha ahaadee markii la wacyigeliyey bulshadii oo guri waliba guri u gudbiyey fariintii uu helay runtii waxaa la isla kaashaday in la ogaado qofka dhibta qaba
تعدي ku dhacay ama mid gurigiisa ka socda ha noqdo ama mid barnaanka kaga imanaya ha noqoto ama waxa la ogaaday xitaa hablihii jaamacadaha iyo dhiganaya iskuulada waxay soo gudbiyeen dhibaatooyinka ay la kulmeen markii bulshadu wacyigelintii badatay markii fariimo badan oo lagu diray maartay miidiyaha la helay markii la ogaaday in aan tacadiga la qarsanba oo depression iyo xanuuno maskaxda ah keeno hadaad wax mushkilado kugu dhacday aad qariso waxay kugu keenaysaa inaad marka dambe aad xanuun ka qaado runtii aad iyo aad bay maartay muhiim ugu tahay wasaaradda shaqooyinka iyo arrimaha bulshada aad bay uga shaqeeyaan hay'adan maxalliga ah ee nagaad aad bay uga shaqeysaa waanu aad iyo aad baa loogu horumaray waxaana la helay qof waliba inuu helo qof caawiya haddii uu xanuun qabay siduu dhakhtar ugu baahnaa ayaa loogu baahday qofkii dhibaato hayso ama tacadi ku dhacay ama wax dhibsanaya in lagala taliyo runtii markii arrimaha la gaadhay oo bulshada ay isku xidhantay oo ay iska kaashatay inay fariimaha isu gudbiso oo qof waliba qofkii wuxuu ku dhaama ku caawiyey waxa iyana la gaadhay dhanka dhaqaalaha la iska taageero oo dadkii iyagoon hay'adaba u iman oo cidba aanay wax u qaban ay 10,000 isku darsadaan oo dumarkii ay iscaawiyaan oo ay barnaamijyada hore uga horumarineed ee iyaga gudahoodii ay sameeyeen runtii waxay wali dhowrayaan haday yihiin dadka danyarta ee gobolkan Sanaag wadada Cergaabo in lagu sameeyo dhaqaale kobcin oo dumarku maadaama ay laf dhabarta dhaqaalaha yihiin oo aanay wax badan aad u lumin oo ay yihiin khasnad wixii ku dhacaa aanay ka quban ay yihiin runtii waxay rajaynayaan oo iminka aanu raadinaynaa oo ku jidkeeda ku joogna sidii dumarka dhaqaalahooda kor loogu qaadi lahaa si ay u ka fargareeyaan gabdhaha jaamacadaha dhiganaya si ay u caawiyaan kuwa kale danyartee bahalkaysan si ay u caawiyaan kuwa tacadiyadu ku dhaceen ee maxay ahayd iyagu maartay dhibaataysan oo ubadka haysta ubadka lagaga tagay sida intuu sheegayso ee caruuro gabadha tacadda ku dhacay gabadhu hadda intay ubad dhashay oo nin guursatay oo barnaamij nololeed samaysay haddana ubadkii ay ku dayacantay tii waxaan isleeyahay anigu tacadda ku dhacay taaliftirkeeda waxa laga caawiyaa maartay xaafadaha iyo dhulka iskaashiga haweenku uu ka socdo ayay ka nooshahay meel kale waxba uga yimaadaan runtii aad iyo aad bay markii bulshadu iskaashatay ee ay isu timi waxay gaadhay fariimihii la isu dirayay ilaa jaamacadda gabadhii dhiganaysay tii iskuulka joogtay askariyadii inantii tuulada ku noolayd ayaa fariintii gaadhay waayo magaaladu maanta way isku xidhan tahay oo applicationka adduunka oo dhami aqal buu wada joogaa si looga hortago tacadiyada waxa ka mid ah inaynu wacyigelintii sii badino oo meelaha gaarka ee ka jiraan tacadigan oo miyada oo kale iyo magaalooyinka ay wacyigelintii sii badino inaan capacity building iyo traininadii iyo waxaas aan sii badino inaan bulshadii dhex marno oo kii maxay haytooy aan tacadi ku dhacay iyo kii xaqiisa la iyo kii xuquuqdiisa la inaan soo ogaano inaas dhaqameedka wacyigelin fara badan loo sameeyo oo la fahansiiyo in culimadu ka qayb qaadato iyaguna wacyigelintan yareynta tacadiga ayayna ku soo maxaynayaa qof waliba ilaahay ka baqdaa oo ayayna ku soo celcelinaynaa waxaan jeclaan lahaa in qof waliba ilaahay kaga baqo hadduu yahay maamulka gobolka hadduu mid degmo yahay hadduu social worker yahay hadduu mid hay'adeed yahay hadduu mid wasaaradeed yahay kullukum mas'uul baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa kullukum raaci wa kullukum mas'uul can raaciyati qof kasta waxa la weydiinayaa qof inta uu mas'uulka ka yahay marka hooyo kasta waxay mas'uul ka tahay awlaadeeda aabba kasta wuxuu mas'uul ka yahay qoyskii oo dhan qof kasta waxaan jeclaan lahaa inuu mas'uuliyadda u hayo qof aan yar ilaa weyn xataa ka yar caruurtu ka sii yar ayaa xaq ku leedahay inay ka ixtiraamo oo u naxariisto marka waxaan badin lahayn wacyigelinta iyadoo shareecada islaamkana aynu adeegsanayno oo qof walba uu ilaahay kaga boqo mas'uuliyadda uu hayo iyo goobta uu taagan yahay waxa weeyaan talada aanu bixinayo anigu waxay ila tahay tacadiyadan waxa lagu yareyn karayaa koow iyadoo wacyigelin bulshada la siiyo iyadoo la soo shiriyo dadkan mawlal amarka ah ee arrimaha tacadiyada ka qayb qaadanaya sida hogaamiye dhaqameedka iyadoo la soo urursho dhalinyaradan iskuulada jaamacadaha dhulkaas oo dhan la wacyigeliyo iskuulada ardaydan maraysa maxay tahay iskuulada dhexe maraysa in la wacyigelin la siiyo si tacadigu u yaraado iyadoo sharciga la adkeeyo sharciga ciqaabta la sheegayo in la adkeeyo oo uu saameyn yeesho oo qofku de wuxuu arkayaa buu ila ka baqaay wax looga sheekeeyay kama baqay sharcigana la adkeeyo intaasoon ku tala kulley anigu waxaan ku tala bixin lahaa si qofka wax qabanaya ay u jiraan horta xeerkii kufsiga oo tusaale ahaan xeerkii oo kale mala ansixintiiba waa hadhow daraaf baan malaynayaa saan filayo xeerkii in la ansixiyo oo tusaale ahaan odayga caaqilka ah ee dabada ka kaxaynaya xeerkan haddii uu ansixi lahaa wuu qaban lahaa oo waxa weeye waxbay ka qaban
teeda kalena dhalinyaradu inta yaryar yihiin ay yaryar yihiin in diinta islaamka la baro tusaale ahaan waxaad arkaysaa hooyada waxaad kula talinaysaa inan gudniinkii laga samayn fircooniga ahaa dabeedna waxay ku leedahay inantaydii ma nabadgelayso hadday inantu diinta taqaano diintii garanayso waa nabadgelay diintana qabanaysa oo ciyaar caruurtiina diintii la baro inkastoo aad moodayso malcaamadaheenii ay u dhisan yihiin wax laga yaabaa macallin baa 5 malcaamadood le inankii yaraa kabiirkaa baa looga tegaya kaasaa marra garaacaya marba ma garanaysaa oo waxa weeye phobia qofkii yaraa ku abuurmaya marka waxa weeye in caruur dadkeeniina ilaa dad islaam aynu nahay aynu diintiina la baro imka xeerka kufsiga kale waa xeer number 78 oo aan saxsan yahay laakiin turjumaadiisi baa khaldanto bulshadii baa ku kacday marka xeerarka iyo siyaasadaha la sameeyo dadkan qurbaha ka soo noqday ee wadanka u soo shaqo tagay iyo dadkan luqadda Ingiriiska markay barteen iska dhigay af Soomaaliga inay ilaaween iyo turjumaya in laga daayo bal dadka muxuu ahaay af Soomaaliga wali ku sii haray sida fiican u garanaya in lala soo kaashado turjumaadiisa way turjumaadu waxa la isixin wuxuu sheeg sixir waa ka daranay turjumaada marka si khaldan qofkii u turjumo ama af Soomaali jilicsan ku turjumo waxa ka inta dhangagaalaha ee hadhow hadalkii si khaldan u dhigaya ee xeerkii dadka nacsiinaya ayaa ka badan waa hagaag waxaa intaasi noogu eg daawadayaal ee doodwadaagii ku saabsanaa tacadiga ka dhanka ah haweenka oo hay'adda nagaad ay u qabatay bulshada qaybaheeda kala duwan isla markaana ay ka qayb galayeen doodana ay si wadajir ay u daadihinayeen ama ay noola falanqeynayeen wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska iyo waliba wasaaradda cadaaladda iyo waliba qaybo kamid ah bulshada oo halkan ka jawaabayay su'aalo dhowr ah oo ku saabsan tacadiyada ka dhanka ah haweenka gabagabadiina waxaan ku wareejinayaa marwo Faadimo Xaaji Xasan isuduwaha wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Sanaag bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horreyn waxaan mahad celinayaa hay'adda nagaad oo inoo fududeysay kulankan iyo madashan ay isugu yimaadeen baynalkan 8 xubnood ka kooban ee ka kala socda wasaaradda cadaaladda arrimaha bulshada ururada haweenka iyo gabdhaha qaangaarka ah ee yaryar waxaan kale u mahad celinayaa dhammaan baynalka halka fadhiyo oo dooda iyo aqoon isweydaarsiga gudbinta aqoon isweydaarsiga si fiican uga qayb qaatay waxaan kale u mahad celinayaa bahda media ay ka qayb qaadatay madashatan guntiga gabagabadii baynu soo gaadhnay fariinta aan halkan ka diraya waxay noqonaysaa markaan soo gabagabeeyo doodii waxa weeye horta dad islaam aynu nahay si dhibaatada tacadiyadu inooga yaraadaan waa inaynu ku noqonaa ku dhaqankii shareecada islaamka dhaqangelinteedii inagoo laba xadiis kaliya bal imka soo qaadanayna oo oranayo nabigeena laga wariyay calayhi salaatu wasalaam oo mid yahay muslimku waa qofka muslimka kale nabadgeliya almuslimu man salama almuslimuna min yadihi wa lisani qofka muslimkii waa qofka afkiisa iyo adinkiisa iyo carabkiisaba muslimiinta kale ka nabad gasho iyo xadiiska kale oo ah qofku wuxuu naftiisa la jecel yahay waa in walaalka la jecdaa oo la jeclada waxaad naftaada la jeceshahay walaalka waa in la waxaad naftaada la neceb tahayna walaalka waa inaad la nabcataa waxaan kaloo ku talinaynaa si tacdiyadan u yaraadaan oo u sababa horta fakhrigu waa ka kow tacdiyadan la sii bataan marka fakhriga in la yareeyo oo dadka dhaqaalahooda kor loo soo qaado dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo waa ka koowaad kalabaadna waxaynu oran karaynaa in shuruucdii iyana la hirgeliyo si tacdiyadu ay inooga yaraadaan ta saddexaad waxaan oran karaynaa bulshada lafteedii in ay noqoto in la isku xidho oo laga dhigo bulshadii bulsho isjecel oo walaala ah oo maaragtay iyadii iswada rabta taafraadna waxaynu ka dhigaynaa in qof waliba qofka kale xuquuqdiisa maaragtay uu tixgeliyo si aan dadku isugu xadgudbin qodobka ugu dambeeya waxaynu ka dhigi doonaa insha allahu tacaala inaynu la dagaalano aqoon darrada wax kasta waxa uu aabaa aqoon darrada iyo fakhriga iyo shuruucda aan hirgelayn iyo xuquuqda aadanaha siday tahay aan loo fulinin inta haddaynu la dagaalano waxa laga yaabaa waxa kale inay naga yaraadaan dhammaan madasha waan u mahadnaqayaa